sheekh hadduu waalidka uu ku dhaho gabar aaqabtid fur ka waran sheekh alxamdulilaah asalku waalidku taaca buu leeyahay wixii aan macsiya dembi ahayn ilaahay xaqiisana xaqa ku xigay aadama ugu xaq badan markay dee nubuwada iyo risaalada xaqa ilaahay taabica laga tago waa xaqa waalidka waalidka haddaba xaqa uu leeyahay baa waxaa ka mid ah wixii aan dembi iyo macsiyo ahayn taacuu leeyahay sunanka ka tegitaankooda iyo makruuhaadka samayntooda xataa waa lagu ateecaya lianna taacada waalidku wixii aan macsiyo ahayn xaaraan samey ama waajib dayac aan ahayn waa waajib kanna waa sunno kanna waa makruuh hadday makruuh iyo sunno iyo waajib farad ay isu yimaadaanna waajibka faradkaa la hormarinayaa saas darteed bay mas'aladani reerku inay isfuraan waa jinsiga mubaaxaadka wey waa asal ahaan sharcigeennu way bannaan tahay xataa xadiidkan dacfigu ku jiray abqadulxalaal ila llahi atalaaqu odhanayahay isagoo ilaahay ma jeclale haddana xalaal ku magacaabayaa labada qof hadday isfuraan dembi maaha nabigeena calayhi salatu salaam waxaa dhacday xilligiisii in cabdullaahi bni cumar gabadhuu jecel yahay uu qabay aabbihii cumarna uu intuu fiiriyey yidhi arkay inayna tan reerka anfacaynin uu yeero cabdullaahi aabba gabadha fur buu yidhi cabdullaahi waa diiday oo nabigu u tegey cumar nabigu u tegey calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi waa loo yeedhay wuxuu sheegtay cabdullaahi gabadhan inayna wax dhib iyo ceeba lahayn laakiin nabigu wuxuu ku yidhi atic abaaka aabbaha warkiisa yeel saxaabada nin ka mid oon filayo abudar ama abudardaa midkood inuu ahaana nin baa u yimid ay hooyadii ku tiri xaaska fur wuxuu yidhi saxaabiyu ii jawaab wuxuu ku yidhi anugu xaaskaaga furna ku dhihi maayo hooyada caasiyo amarkeeda diidna ku dhihi maayo laakiin waxaan maqlay nabiga ole calayhi salaatu wasalaam hooyadu albaabada jannada kan ugu qiimo badan weye awsatu abwaabi iljanna ee albaabka adigu ama xajiso ama iska dayac hadalka macnihiisu muxuu yahay xagga hooyada mudnaanta leh weye hadday xaaladdu gaadho in la xallin waayo oo ay laba mid dooran noqoto waalidka inaad goyso iyo gabadhan idinkoo waaweyn aad isu timaadeen inaad fasaxda hadday gaadho ood isku xajin iyo xal iyo waanwaan waxba suurageli waayo dee waalidkaa mudnaanta leh kagana xaq badan xaqiisa waajibkaa ilaalintiisaanan ka mudan gabadhoon shalay isu timaadeen iyadana wax kaa fiican ba ilaahay inuu siiyaa laga yaabaa adiguna waalidka meeluu ku soo hoyan karo oo ku soo hiran karo baad laga yaabaa rajaynaya inaad hesho saa darteed waalidka waa la ateecayaa haddii xal kale la waayo wabillahi towfiiq